ururka tayo ee bulsho kalkaal ayaa maanta waxa ay samafal dawo bixina ka sameeyeen tuulada Macruuf oo qiyaastii 30 kiiloomitir dhanka galbeed ka saaran magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Samafalkan ay ururka tayo ee bulsho kalkaal ku gaareen deegaanka Macruuf ayaa waxa ku helinayay gudoomiye ku-xigeenka ururka tayo, guddiga caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale. Waxaa si diiran u soo dhaweeyay dhalintani u taagan gacansiinta dadka taagta yar, maamulka tuulada, culimaawoodiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Deegaanka Macruuf ee duleedka magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku nool in ku dhow 500 oo qoys, kuwaasi oo u baahan waqtigani goobo waxbarasho, xarumo caafimaad iyo dayactir masjid iyo baahiyo kale oo ay qabaan bulshada ku nool tuulada Macruuf. Dhinaca kale, mas'uuliyiinta ururka tayo ee bulsho kalkaal ayaa sidoo kale ka wacyigeliyay bulshada tuulada Macruuf in ay ka feejignaadaan waqti waliba caabuqa dilaaga ee coronavirus, iyadoo ay xusid mudan tahay in cudurka corona uu haatanba gaaray wadamo badan oo dunida ah. Waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta tuulada Macruuf ee duleedka magaalada Beledweyne oo u mahadnaqay dhalintani isu xilqaantay caawinta walaalaha danta yar ee bulsho kalkaal. waxaa mahad iskale nimanka waaraheena ururka tayo bulsho kalkaal oo maanta lagu soo booqday tuulada Macruuf. aad maartay in laga taakuleeyo waa u baahannahay, bulshada aad ay u baahan tahay. wixii wax qabad ah, wixii maartay awood ilaahay iskale, wixii waad kari kartaa haddaad tihiin ururka tayo ee bulsho kalkaal. waa idin soo dhaweynaynaa. ururka tayo waa aad u mahadsantihiin, sida yacni aan faraxsanahay maanta aad samayseen. daawada aad aan ugu baahneen, yacni dadkii haddii baarihii wax ku qabsan lahaayeen biyo ay ka soo galeen, waxay daawo ku gataan ma haystaan. marka tan waan filayni, walaalaheena noo soo gurmadaa tihiin, khayr Allah idin siiyo. waa aadaad noo kaalmayseen. waxyaabo kale oo yacni markaas iskaga sii baahanna waa jirtaa, oo sida walaalkayga igu hore as u sheegay, sida dugsiga iyo maxaan ku yiraahdaa masaajidka oo kale, iskuulka. waxaa ciyaal oo meeshaan noo joogo waxay u baahan yihiin waxbarasho, u baahan yihiin xaggii waxbarashada laftirkeeda in aad nalaga taakuleeyo. walaalaheena noo soo gurmadaa tihiin, khayr Allah idin siiyo. bismillaahi raxmaani raxiim. anigu oo ku warramaa afka sidaa koreen bulshada tuulada Macruuf, maadaama aan odagii Macruuf aan ahay, walaalahayna noo yimid si fiican aan sidaa koreen aan ugu faraxnay in hadda sidaa koreen wixii soo raacan ay noo keenaan. aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan noo yimideen daawo noo keeneen oo tayo leh, waxtar leh na ay noo keeneen. aad baan ugu faraxnay. dhinaca kale, waxaa hadalka qaatay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ururka tayo ee bulsho kalkaal oo iyana ka hadlay muhiimadda safarkooda. aad baan idin salaamayaa dhammaan walaalaha ku sugan halkan. maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 19 bishii 2020 waxaan soo booqanay oo si sama aan ku soo booqanay tuulo lagu magacaabo Macruuf oo in badan la ka saayo kuna teedsan markaa mid ka mid ah ka tirsan mid ka mid ah tuulooyinka gobolka Hiiraan, qaasatan degmada Beledweyne. ilaahay mahadiis waay insha Allah taala. waxaan soo booqanay walaalaheena, waxaan soo gaarsiinay daawo taasi oo markaa deeq daawo ah ayuu jir markaasi cid markaasi nagu taakuleynayay, balse ay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskood isku xilqaamay, kuwaas oo markaa u istaagay dhammaan bulshada Soomaaliyeed hasta kuwa ku nool markaa degmada Beledweyne. daawadani waxaa qayb libax ka ahaa misana ku shaqalay in badan inay bixiyaan ururka tayo ee bulsho kalkaal, kuwaas oo in badan si baaxad weyn leh kaga dhaqdhaqaaqo markaa gobolka Hiiraan, qaasatan degmada Beledweyne. dhammaantiin aad baan idin salaamaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa markaa degmadan ama tuuladan qaaliga nagu ah tuulo Macruuf oo in badan dadkeeda ay si wanaagsan inoo soo dhaweeyeen. waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa bulshada Soomaaliyeed ee haddana daawanaysa. aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. maasha Allah. aniga ku hadlaya afka gruubka tayo bulsho kalkaal, magaciiguna yahay Maxamed Xasan Cabdirashiid. alxamdulillah. maanta waxaan joognaa ilaahay deeqiisa iyo fadligiisa Macruuf aan joognaa.
wixii aan hayno aan awoodnay bulshadii tayo ay ka tirsaneed nin walba waxbuu awoodaa wixii awooday deeqdii aan awoodnaa soo gaarsiinay saan u dhannahnay dhammaan ururka tayo. بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أمود الصوماليات من والبيجوان وإذن السلام لنا وحنا لك السلام لنا السلام الإسلام كتاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت وحنا بلانا هالقولك يعني عافمات يتقولين تقولين يقولون فهر رسم مجال البلد ويني ما أنت وحنا فهر قرني كلك اللي بتقولون فهر مجال البلد ويني عارف معروف ما شاء الله هالقولك يعني ما أنت هالكلام شوي بلادي وحنا رجعنا إن مشان كسر بدنا. ma ahan markii ugu horeysay oo ay ururka tayo ee bulsho kalkaal ay sameeyaan dawabixin lacag la'aaneed oo caynkani oo kale ah hase ahaatee ay maamulka ururkani ka dhawaajiyeen in ay sii gaari doonaan degmooyin iyo deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. ibraahim maxamed xasan ibraahim jamuni telefishinka caalamiga Somali Bantu TV beledweyne.